iyadoo maalmahanba ay dalka ka dhoofayeen xujaydii sanadka qorshahooda inay soo gutaan waajibaadka xajka islamarkaana ka dhoofayeen gegada diyaaradaha ee magaalada Berbera ayaa saaka xujaydii ugu horeysay ee ka dhoofa gudaha magaalada Burco ay si rasmi ah uga duuleen gegada diyaaradaha ee magaalada Burco. Xujaajtan oo tiradoodu dhamay 40 xujay ah ayaa saaka diyaaradda Juba Airways ay ka qaaday garoonka diyaaradaha ee magaalada Burco ka hor intii aanay diyaaraddu ka aadin gegada diyaaradaha ee magaalada Burco. Waxaa sii sagootiyay xujayda saafka gobolka Togdheer Yaasiin Maxamed Cabdi isuduwaha wasaaradda duulista iyo hawada gobolka Togdheer Cabdi Yaasiin iyo waliba saraakiil sarsare oo ka socotay diyaaradda Juba Airways. Farax Xadhigle oo kamid ah saraakiisha sarsare ee diyaaradda Juba Airways ayaa isagoo xusay inay markii ugu horeysay ee ay diyaaradoodu ka haado magaalada Burco kana qaado xujay intan ay tahay maanta, isagoo sidoo kale carabka ku dhuftay inay xujay ka badan 100 xaaji ay ka qaadi doonaan garoonka diyaaradaha ee magaalada Burco maalmaha soo socda. Waxa kaloo xusay Mr. Xadhigle inay u fududeyn doonaan waxyaabo badan, waxaanu yiri maanta ugu horeysay inay garoonka Burco ka kacdo iyadoo xujaaj ilaa 40 qaadisay oo u gudbinaysa marka dambe ilaa Djibouti oo diyaaradii weyneed ee 160 ka qaadisay ay ku qaadayso. taasuna waxay tahay hore way ka baxeen laakiin Berbera ka baxeen oo difacadii hore Berbera ka baxeen laakiin maanta waxay noo suuragal noqotay inaanu halka Burco ka ama bixino iyadoo marka xujaajtii iyo maxay ahayd dadka xujaajta ahaa aan weli xaggan Burco ama daara ha noqotay ama Juba ay midna ka ama bixin maanta ugu horeysay Juba inay soo fadhiisato ilaahna waxaanu ka baryaynaa barasaafka gobolka Togdheer Yaasiin Maxamed Cabdi iyo isuduwaha wasaaradda duulista iyo hawada gobolka Togdheer Kaftan Cabdi Yaasiin ayaa ka warbixiyay sida ay u suuro inay waqtigan ka haadaan diyaaraduhu garoonka diyaaradaha ee magaalada Burco muddo qabiya hawshiisa shaqona aanay si fiican u soconin. Waxayna sheegeen garoonku inuu haatan fiican yahay balse ay u hadhay oo kaliya xoogaa dayactir ah. Waa kan ugu horeyn Cabdi Yaasiin oo arrimahaasi ka hadlaya. ayaa u xidhan dhererkiisu waa 2500 mitir waxaana fadhiisan kara diyaaradaha Propelleriska ee ah kuwa waaweyn kuwa dibinkii dhexdhexaad mediumka sida tan rabnay oo kale. waxaan mar labaad u mahadnaqaynaa shirkadda Juba Airways oo iyadu si gaar ah had iyo jeer ugu soo dhiirato taqaana garoonka kan. waxaana shirkadaha kale ugu baaqaya ugu dambeyntii barasaafka gobolka Togdheer Yaasiin Maxamed Cabdi ayaa isna u soo jeediyay shirkadaha kale ee diyaaradaha inay garoonka diyaaradaha ee Burco soo fadhiisan karaan kana qaadi karaan xujayda, isagoo ka codsaday inay soo fadhiistaan garoonka kana qaadaan xujayda sanad sida diyaaradda Juba Airways. Muuse Salebaan Maxamed, shabakada caalamiga ee Tunya News, Burco.